munaasibadan casho sharafta ah oo ka qabsoontay hotel barwaaqa sooran ee magaalada Burco kuna sugnaayeen madax dhaqameed odayaal aqoon-yahan dhalinyar iyo mudan kale ayaa lagu taageeray ugaas Cabdiqaadir Faarax Xaaji Cilmi oo ka mid noqon doona bahda dhaqanka ee gobolka Togdheer. madax dhaqameed iyo mudan kale oo madasha ka hadlay ayaa sheegay inay taageersan yihiin soona dhaweynayaan ugaas Cabdiqaadir Faarax Xaaji Cilmi wax qabadkiisi ilaa iyo xaaladdu halka ay marayso in aynu iska xog wareysano oo aynu ugu soo bandhigno dadka jooga gudaha iyo kuwa dibadda joogaba. waa professor waynu wada ognahay gobolka Togdheer iminka dadka ugu sarsareeya ee jaamacadaha wax ka dhiga ayuu ka mid yahay oo dadka dhalinyarada ubaxa soo baxaya maanta ragga soo saaraya weey. ugaasku waxa weeye dhakhtar ka shaqeeya xanaanada xoolaha oo ah sarkaal maanta gobolka Togdheer ah. waa ragga u baahan yahay gobolka Togdheer madax dhaqameedkiisa inay ku soo biiraan maadaama oo aynu in badan uu inoo joogay guriga gudoomiyaha Muuse Galbeed oo gudidii la soo shaqeysay iyo raggii ay wada joogeen ay aad u garanayaan gudida beesha Muuse Ismaaciil Galbeed. waxaan halkan u taagnahay soo dhaweynta iyo taageerista iyo sharaxaadda Professor ugaas Cabdi Faarax Cilmi oo aanigoo waliba ku hadlaya suldaankii oo xanuunsanaya oo Hindiya jira oo maanta halkan aan ka maqnaadeen afkiisa ku hadlaya oo aan leeyahay suldaankana Ilaahay ha caafiyo caafimaad degdeg ah Ilaahay ha siiyo. waa nin aqoonteeda iyo hogaaminteeda iyo waayaragnimadeeda intaba isku darsaday weey. marka waxaanu leenahay Muuse Ismaaciil nasiib bay u heleen maanta aqoon-yahanka dhammaan ninkan wax walba koofsaday ayay maanta Muuse Ismaaciil Galbeed nasiib u heleen. waa nin shirraban runtii ninkaasi waa nin maanta aan la oran karaynin ninkaasi muxuu ahaa ama muxuu qaban doonaa ama muxuu soo kordhin doonaa. runtii waa nin aad iyo aad runtii xaqiiqada markaynu ka hadlayno waa nin daacada waa nin aqoon-yahana waa nin waxbartay waa nin bulshada ay u baahan tahay. isagu maanta teetalkan mushaarna umuu soo doonan shaqana umuu soo doonan waxa weeyaan waa nin jaamiciya waanu hambalyeenaynaa waanu la shaqaynaynaa. intanina waxaan filayaa waa iftitaaxii uune madashii weyneed ee la isugu imanayay la isku arkayay way dambaysaa insha Allahu tacaala. kow aqoon-yahan sita shahaadada ugu sareysa caalamka laga qaato waa PhD holder. secondly marlabaadka waxa weeye aqoon-yahan sare barasare oo jaamacadaha gobolka wax ka dhiga intana waa dhakhtar veterinarian way. Cabdi Faarax waxa lagu xasuusan doonaa doorkii ku lahaa horumarinta beesha iyo deegaamadeeda. wuxuu door fiican ka qaatay nabadeyntii gobolka Togdheer iyo beelaha khabiir dhaqan way. aqoonta waxa uu dheer waa tanadar sheegay waa dhaqanka qofku markuu dhaqanka iyo isku darsado iyo aqoonta wuxuu horumarin karaa dhaqanka oo bulshadiisa dadka uu shaqeynay sidii calaamasaarkii xafladii weyneed ee ugaaska ay beesha ugu diyaar garoobileed iyo dadka degan gobolka Togdheer ee ugaaska la soo shaqeeyay hawlihiisa wax qabad ka warhaya. anigoo ku hadlay afka dhalinyarada Muuse Ismaaciil Galbeed hiiliyo oo kula garab taaganahay dhalinyarada gobolka dhan baa ku baahan tabeesha ku baahan horo socoogaas. maanta waxay fureen Muuse Ismaaciil weji cusub oo aynu u baahnayn oo naga qarsoona waxa wax qaban kara oo wax oran kara oo ummadda hagi kara oo dhaqanka iyo haddii aan laba ku reey maadigaba ku hagi kara wax bartay baa wax hagi kara. ugaaska waxaanu ku hambalyeynayna oo aanu ku taageersanahay oo aanu ku soo dhaweynayna shaqada maanta isagu iyo xigaalkiiba ay garteen isaguna uu doonay. wajiga cusub ee maanta Muuse Ismaaciil Galbeed ugaasku uu furay waxaanu leenahay beelaha kalena ha ku daydaan. ugaasku waxaanu leenahay beesha xarigu u qabanaya Muuse Ismaaciil Galbeed waanu idinla qaadanay anaadaanu nahay martida iyo uqaashi lagu marti qaaday waanu ugaaska si mug iyo miisaan labaanu soo dhaweynaynaa. waxa weeyaan ummadda kalena waxaanu leenahay ee beelaha garxajis war ku dayda ugaasiyo noocaas oo beesha xariga u dhifto horumar iyo baraariyo barwaaqo gaarsiiya idinkuna ku daydo keena.
dhankiisa ugaas cabdiqaadir faarax xaaji cilmi ayaa sheegay inay ka go'an tahay in uu bulshadiisa ugu adeego daacadnimo iyo hab ay mas'uuliyadii ku dheehan tahay. hawshan ana iga timi anaa jecel maaha wax la igu soo riixay maaha wax ay cidi tiri hebel iyo hebel sida yeel de halay taageero dadku ay igu dhiiri geliyo waxayse igu sii xoogaysatay xilliyadii dambe wax weeye doorashooyinka aynu ka soo baxnay ma sha Allah sanad bay imika soo socotay waa laga dheregsan yahay meel kasta way gaadhay shirkani markaa waxa weeye uu qaban qaabin iyo taakulayn iyo isxog waraysi iyo in halkii caleema saarku uu dhici lahaa waxa weeye insha Allah aanu hadee beedkeed ku leeyidin la wadaagno iyo waqtigii iyo hadee beedkeed ku leeyay beesha insha Allah waan ururin doona ilaahay baa wax ururiye laakiin kullayba de nin aad taqaaneen baan ahay waan idin dhex joogay nin dhaqankiina idin la garanayaan ahay nin cusub oo maanta de hadee beedi bafleynaya ma ihi nin gobolka laga yaqaanaan ahay nin maanta tacliin daro ay hayso ma ihi nin de doonaya inuu wax ka urursado laakiin waxaan ahay wax weeye nin nafiya maal bay idin la wadaagaya waxaan kala ururin doonaa beelweynta Muuse Ismaaciil Galbeed habar Yoonis insha Allah waxaan kala sii ururin doonaa intaas oo kale kuma koobniyay beelaha gobolka Togdheer ku nool oo dhan waxa jirta cuqaal soo jireena oo aan aad u jecelahay waxa jira chief caaqilkii oo la wada garanayo ka ab waxa jira suldaan Khadar oo maanta hadii beedkeed ku leeyahay suldaankii reerkii ugu horeeyay ahaa oo isagu maanta xanuunsanaya waxa jira garaadkii oo isagu imika shaqeynaya oo u dib jiray hawlaha Muuse Ismaaciil Galbeed oo dalwada iyo odayadii wata aniguna ugaaskii imika soo kordhay baan ahay tira soo kordhayna waa tayo soo kordhay waa halku dhageyga Fahmi Kaysa Xirsi Bulsha TV Burco.